الرزاق ذو القوة المتين. walaalayaal ilaahay baa mahadsan, mudano wanaagsan, mutaystay in lagu mahadiyo, la raali gasho. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. walaalayaal بعد شكر الله تبارك وتعالى waxaan jeclaystay caawa inaan telefishinka dacwa TV usoo fariisto anoo ah cabdirasaaq jiir oo duqeyda Soomaaliyeed iyo maxay ahayd ciroolayaashooda ka mid ah usoo fariistay telefishinkan in aan talo ka bixiyo ama aan ku darsado maxay ahayd wuxuu ilaahay iga waafajiyo mowduuc shalay iyo xalay iyo maanta iyo caawa cara Soomaali iyo Soomaali meel kasta ay joogto saqiir iyo kabiir qodob ay isla qaada dhigeen oo ku saabsanaa mowduucii baarlamaanka la geeyay oo magacii foosha xumaa sitay oo shanqartiisu iyo maxay ahayd qayladiisu iyo buuqiisu uu isqabtay tan iyo intaan sheegay oo shalay xalay maanta iyo caawa sidaan ku furfurtay aayadda quraanka kariimka ah wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin min baabi dhikra. annagu haddaan nahay ummatu Muhammad kitaab baanu leenahay oo ilaahay noo soo dejiyey risaalo samaawiya ah samadana laga hogaamiyaa. Allah jalla jalaaluhu intuuna abuuray iskama kaaya sii dayn, rusul buu noo soo diray, kutub buu noo soo dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina dhowray, waa ina ilaaliyey inta cid la dhowri karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadhakkir fa ina dhikra tanfacu almu'miniin. suubanow salawaatullaahi wasalaamu calayk wadhakkir waani fa ina dhikra waanadu tanfacu almu'miniin, mu'miniintay anfacdaa, way anfacaysaa. sidoo kale isla aayaddaa la mida ilaahay wuxuu yidhi fadhakkir inamaa anta mudhakkir lasta calayhim bimusaytir. waaniyaa tahaye khasbi kari maysid laakiin waanaad ku leedahay. sidoo kale ilaahay wuxuu aayad kale ku yidhi fadhakkir in nafacat الذikra sayadhakkaru man yakhsha wayatajannabuha alashqa alladhi yasla الnaara alkubra. waani Muxamadow hadday waanadu wax tarayso fadhakkir in nafacat الذikra sayadhakkaru waxaa waansamaya man yakhsha cidda alle taqaan oo qabriga qiyaame iyo maxay ahayd iyo janno iyo naar kala dooranaysa. fadhakkir in nafacat الذikra sayadhakkaru man yakhsha wayatajannabuha. waanada waxaanan ku qaadanaynin oo ka fogaanaya alashqa ahlu naarka, kan ayaan ka daran oo qumayga oo bacawga ah. alladhi yasla الnaara alkubra, midka gelaya naarta weyn oo ilaahay weynanka ku weynankeeda sheegay oo jahannamo ah oo saciiro naareed ah oo wareerka ka jira la og yahay, kaasaa waanada ka durkaya. sidaa daraaddeed walaalayaal min baabi dhikra baan caawa halkan usoo fariistay waano iyo waanin walaalada Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan usoo fariistay min baabi nasiixa lianna nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiiskii saxiixa waa ku yidhi addiinu nasiixa. saxaabadu waxay qulnaa liman ya rasuul allah qaala lilaahi walirasuulihi walikitaabihi walia'immati almuslimiin walicaamatihim. xadiiska macruufka oo taqaanaan diintu waa nasiixo weeye. waxaan halkan usoo fariistay nasiixo iyo talo suuban tilmaamideed. waxaan kaloo usoo fariistay min baab alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar.
oo ah tilmaamta ummatu maxamed ku leeyihiin wanaagga isfara xumahana iska reeba. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billaah. alaaya. mowduuca ka jira cariga yagi iyo soomaali iyo baarlamaankii iyo maxay ahayda golihii wasiirada iyo tan iyo maxay ahaydayay saqiir iyo kabiirba ay isla qaadaa dhigeen ayaan ka naseexaynayaa, ayaan waana ka wadaa, ayaan wanaagiisa xumaantiisa aan ka dhiidhiyaya. waa qof walba waa garanayaa hawshu inta ay gaarsiisan tahay. ararta aan ka sameeyeyna qof kastoo muslima ah qalbigiisu waa wuxuu qaadan karo oo uu maxay ahayday la qamandhacoonayo. soomaali baa iska leh, shisheeye ma laha. soomaali baa iska leh. soomaalina waa ummad muxamed, waa ummad muslimada, diintoodu waa islaam. 100% bay soomaali muslim tahay, ma aha 99 iyo kaas ma aha. 100% soomaali waa muslim, waa ummad muslimada. adduunka ummad sida ay soomaali islaam u tahay oo 100% u tahay adduunka ma saara. maka iyo madiina iyo maxay ahayday caro sacuudi iyo soomaaliya haddii la isu eego, soomaaliya islaamkeedu 100% yahay. waana maragma doonto, waana ka doodi karaayo ciddii markaa igu soo dhigataa qodobka meelaan la maro iyo waxaan wax kula qaybsadaba waan hayaa. oo waxaan ogahay inay gaalo leeyihiin, oo waxaan ogahay in ay maxay ahayday shiica leeyihiin, oo waxaan ogahay inay liberaaliyiin waaweyn oo diinta duulaanku adag ku haya oo idaacadahooda fadhiya. annaguse ma lihin intaba, ma lihin. mid gaala oo maxay ahayday madoobaaday oo qaaxay iyo qurun ku dhacay oo meel geesa kasoo qaylinaya iyo gabdho yaryar oo Sweden iyo Ingiriis iyo Finland iyo lagu sheegay oo caata ah oo maxay ahayday typhoid iyo waxay qabaan aan garanaynin oo aan dhowr jeer arkay way jireen. laakiin 1% ma dhanna, 1% ma dhanna. maxaa yeelay Soomaali waa 30 milyan ilaa iyo 40 milyan. halkeeda maxay ahay 1% oo Soomaali ah maxay ahayday wuxuu maya 100% hal wuxuu noqonayaa 10,000 oo Soomaaliya. 10,000 oo Soomaaliya oo gaalana ma hayno. waa farakuturis. anigu ma garanayo 5 qof oo gaala oo Soomaaliya ma garanayo. adiguna waxaan u malaynayaa midka xariif iska dhigaa inuusan 10 Soomaali ah uusan gaalnimo ku cadeyn karin. marka 1% ma dhanna. waa 100% Soomaalidu islaamkeedu oo waa sunni oo waa shaaficiyo oo waa ummatu Muhammad oo waa ahlul qibla. subxaanallah. ummadda noocaasa oo 100% muslim ah in lagula soo dhiirado arin maxay ahayd caynkaas oo kale ah waa ayaan darre inteeda la eegay. mana lagula soo dhiiran karo. waxaana tusaale u ah baarlamaanka doorku qaatay. waa ka dhiidhiyeen oo waxa ka dhacay baa ka dhacay. baarlamaankii shalay aayaadka quraanka laga dhex akhrinayay oo axaadiista nabiga laga akhrinayay oo diinta lagu difaacayay waxay daliil u tahay ummadani inay tahay umma muslima 100%. qof iyo laba iyo wuu soo dhuuman karaa oo waa soo duusi karaa oo dhaqankan oo kale maxay ahayday raba inuu ku dhex faafiyo. laakiin meesha rag dhalay, dumar gob ah oo maxay ahayday ummatu Muhammad ah oo rag iyo dumarba leh baa fadhiya oo diintoodiina meel kasta ku difaacanaya. bari iyo bad ku difaacanaya, miyi iyo magaalo ku difaacanaya, maxay ahayday baarlamaanka iyo wasiiradaba ku difaacanaya. maxay ahayday u soo jeeda in diintooda aanan lagu soo tallaabo dheerayn. waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan wax ka iraahdo.
waxaan qodobka koowaad ka oranayaa golaha wasiirada ma garanayo wareer iyo waali inuu ku dhacay markii khayre uu ka horbayray oo maxay ahayday ra-iisul wasaarihii hortaagnaa oo horjoogahooda ahaa oo maxay ahayday in badan joogay. maalmahan dambe waxaa muuqata wax walba waa soo gudbinayaan, talantaali iyo shaqo xoogan baa ka dhacday. garan maayo cidda meesha soo fariisatay, garan maayo. maxaa yeelay in dallat calaa shay tadullu calaa amrin aakhar, wax baa muuqda. aniguse ma filanaynin tan oo kale in sidaas oo kale ay usoo dhaafayso. maalmo dhexdeeda waxaa kasoo baxayay qodobo wax badan aanan la keenin oo hoosta la geliyey oo maxay ahayd xukuumaddii hore iyo ay fududeyn weysay, laakiin u baahnaa in la fududeeyo oo lasoo fududeey. laakiin tan inay ku naban tahay maanan filaynin. tan oo kale waxay ku cayaaraysaa golaha wasiirada iyo qaabsami u socodkii in dhoweyd ay muujinayeen bay cagta ku dhufanaysaayo waxay soomaalidu tiraahdaa maxay ahayday arinkan eeg waxa ka dambeeyana eeg. golaha wasiirada inay nagu soo gudbiyaan qodobkani runtii waa ceeb taariikhda u gashay weeye. waa waxaanan laga filanaynin ummad muslimada, wasiiro dhan oo muslimiina inay yidhaahdaan arinkan waa soo gudbinay, annaga waa celin weynay, waxaanu horgeynaynaa baarlamaanka. adigu waxay ka noqotaba ama waxa ku xambaaraba wax loogu dulqaadi kara ma aha. waxaa la rabay inay saqiir suujiyaan oo ayna soo gaarsiinin. tamaam. qodobka labaad, baarlamaanka ahlu sharaf walaa shaka walaa rayba, baarlamaanka soomaaliyeed giddigood dhammaantood rag iyo dumarba waa ahlu sharaf. maxaa yeelay ruuxu wuxuu bilad ku qaataa oo sharaf ku qaataa mowqifka uu markaa istaago. mowqifka ay istaageen baarlamaanku waa mowqif maxmuud ah bimara, waa mowqif mudan in looga mahad celiyo oo lagu shukriyo oo kaalintooda la garto. waxaan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala juhdigiina ha barakeeyo. wixii diinta iyo shareecada islaamka meel ooga dhacaya dee waa wax meel kaaga dhacay adiga, walaalka muslimka ah, walaasha muslimada ah. anigu waxaan aaminsanahay sidaan horeyba u iri Soomaali boqolkiiba waa 100 muslimiin. rag baa ka hadla golaha baarlamaanka, ragga gala islaamkoodu waa ceenke, waa muslim, waa boqolkiiba 100 muslima. ninkii maxay ahaydayay asagu maxay ahaydayay aanu ku aragno wuxuu ku gaaloobayo aanu ku lagu gaalaysiyo culimadu ku gaalaysiiyaan mooyaane soo ma garanaysa. anagu Soomaali waa rabnaa xataa baarlamaankooda in la galo waa rabnaa. maxaa yeelay waxaan oo kale baa la marinayaa hadduusan baarlamaanku ku jirin dad damiir diimeed leh, wadaad ahdayan ku jirin, haddayan Soomaali Muxamed sax ah ayan ku jirin, rag iyo dumarba haddayan ku jirin dad duntoodu sarreyso, waxaa la marinayaa waxaan iyo wax ka liitaa la marinaya. marka min baabi taqliil alfasaad in baarlamaanka la galo oo wax laga saxo oo wax lagu dhex saxo oo maxay ahayd la celceliyo oo kan dheeraynayo de meelaha inooga maxay ahayd laga soo diray oo ajenda kala wata la hor istaago oo la yureeyo oo jacla yiraahdo waa u baahannahay. haddaan niraahno lama geli karo, lama raaman karo, waxaa meesha isugu tegaya runtii wixii la soo dirsaday oo dhan oo ajendayaasha gaalada watay baa isugu tegaya, waxaana ka soo baxaya waxaanan runtii maxay ahayd ay ciribteeda dambe aanan lagu mahadin. golaha wasiirada intaasaan oran lahaa. dib dambe arinkaa yayan idinka soo baxsan, rag wax ku oola noqda, maxay ahayd oo ummadda diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkoodaba u difaaca. baarlamaanka ahlu sharaf weeye, waana taan ka hadlay. ilaahayna subxaana wa tacaala kolley raggan maqlay oo dhageystay oo ka hadlayay miisaankooda xasanaadka waa u gelinaya. ragga ku taageeray guddoomiyahooda iyo dhammaan hay-adahoodao dhan oo maxay ahayd arinkaana laalay oo naga hor celiyeyna ayaguna waa ahlu sharaf weeye. ilaahayna subxaana wa tacaala dee qodobka ilaahay
waxaan filayaa inuu ilaahay ugu dambi dhaafayo dad badan oo baarlamaanka maanta hawshaa qaatay ka mid ah. tamaam. laakiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo golaha baarlamaanka. horta magaca ah golaha sharci dejinta ah ka fogaada intaad ka fogaan kartaan. maxaa yeelay shaaricu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa sharciga dejiya. am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah. golaha sharci dejinta deelqaaf baa ka buuxa. idinkaa dib ugu laaban doona, waadna ka doodi doontaan baan filayaa in aad magac bixinta xataa aad iska saxdaan. maxaa yeelay nebigu sal allahu alay wasalam xataa magac bixinta waa uu ku dadaali jiray. tamaam. sidoo kale golaha baarlamaanku kama weyna sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara. musalamaadka diinta, ummaddan diinteeda waxyaalaha birtu ku goysay baarlamaanka ma doodi karo. hadduu isku dayo inuu ka doodana waa ku gaaloobaya. walaa shaka walaa rayba, waa kufriyaad weeye. awalkii horeba adoo la isku haystay ma la geli karaa mise ma la geli karo. tallaabo dheeri haddaa ku darsata hadda garo waa ayaan darre inteeda la eg. annagu waa difaacaynaa, waa celcelinaynaa inta. laakiin hadday alamtaro dhaafto waxaa garanaysaa ummadda iyo culimmadeeda iyo duqaydooda waa isugu tegayaan baarlamaanka iyo nijaasayntiisa. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa haddii loo soo dhigto soomaali fadhi uma yaallo. wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara. waxaan la yaabay nin baa waxaa la yiri shareecada islaamka ma laysku xukumi karaa mise wuxuu yiri muxuu yiri I say no, that is not my choice. ma gasho doorasho, ma gasho ilaahay diintiisa. soo ma garanaysa kownuka muslim waa inaad hogaansato. sidaa daraaddeed qodobkaas waxaan rabay baarlamaanku inay ogaadaan waxyaalaha diinta ay birta ku goysay hadda lagama hadli karo. hadday dhacdo in maxay ahayday ay soo gudubto meeshaa timaado oo baarlamaanka la hor keenana, tan maanta dhacday mid ka daran waa inay ku dhacdo. waa in golaha madaxtooyada ay gilgilato. waa in golaha wasiirada waali ay ka dhacdo. wareer waa inuu galo golaha wasiirada oo 2 iyo 3 markiiba la cuno oo laga keeno mooshimo iyo wixii maxay ahayday la keeni jiray. waxaan kaloo u mahad celinaya, ku shukrinaya bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waxgaradka Soomaaliyeed, aqoon-yahanadooda, duqaydooda qodobkan baarlamaanka la keenay ka dhidhiyay. weliba si gaara maxay ahayd aqoon-yahan waayeelka maxay ahayday waxgaradkii wasiirkii Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo xagga duqaydana duq ah, xagga aqoon-yahanadana aqoon-yahan ah, madaxdii wadanka soo martay ah. meesha uu iska taagay waa mowqif xamiid ah weeye. soomaalina way ku og tahay qodobka. cabdilaahi adiga raggaa tan iyo shalay hawshaa ka hadlayay, khayrkiina allah badiyo, towbada iyo allah naga wada aqbalo dhammaanteen, allahna waafajiyo, ilaahi subxaanahu wa tacaalana miisaanka xasanaadka allah noo wada gesho. beesha caalamka, aniga beesha caalamka oran maayo, beesha gaalada iyo dhashoodu dalkana lama leh, diintana lama wadaagto. maxay ahaydayay dadnimadayada ma maamuli karaan. dowladda hadda joogtaa mudane farmaajo iyo raggiisu waxay caan ku noqdeen in aanan talada loo meerinin. in ninka UN-ta u fadhiya miyuu ahaa ma aqaan, mise ninka meesha ka hadlay inuu wadanka sii joogo waa ayaan darro inteeda la eg weeye. maxaa yeelay qodobuu ka hadlayay iyo maxay ahayd doorashadu ka hadlay iyo intaa waa la dulqaadan karay. laakiin ummadda diintooda iyo muslamaadkooda hadduu gacanta la soo galo, hadduu 7 casho sii joogo, waxaan filayaa in tallaabadu ay mid kale noqonayso. sidoo kale Soomow iyo reer Muqdisho iyo Soomaali meelay joogtaba, mudane Soomow khayrkaaga allah badiyo. tallaabo maxay ahayday aad qaaday beri dhexdaas
oo sheekh maxamed cabdi umal oo muxaadaro iyo wacdi iyo waana jeedinaya mudaharaad iyo waxaa ku kacisay maxay ahayd ayay howl aan isla ogeyn waay ninkan diintaada usoo dhigtay ya wiilasheenii soomaaliyeed yiri hays guursadaan hala mariyo gabdhaha iyaga ha istaabtaabtaan banaynaya oo raba inuu waxaa nagu faafiyo diinteenii iyo musalamaadkii faraha la gelaya in loo aamuso laga xishoodo waxaan u malaynayaa taasina taariikhday gelaysaa mudane soomow berri iyo saa dambe war baan kaa sugaynaa reer muqdisho diin iyo dadnimo iyo maxay ahaydayay diiranaan baanu idinku naqiinay waana midii wadanka maxay ahayd difaaceeda horseedka u ahayd maanta diintiina iyo maxay ahayd dareenkiina inaad muujisaan baan idinka doonaynaa khayrkiina allah badiyo diinta ilaahayna allah inoo xifdiyo saqiir iyo kabiir caruur iyo ciroole rag iyo dumarna ilaahay subxaanahu watacaala kuwa uu towbada iyo diinta iyo iimaan ku dilo ilaahay naga yeelo wabillahi towfiiq